xilli ay dunida islaamku ay ku jirto daciifnimo kala tagsanaan rajabeel sida maanta oo kale. midana kaleeto waxay dhacday sanadkii 1071 xilliga milaadiyada 463 hijriga 950 sano ka hor Yurub iyo reer galbeedka oo iswato waxay samaysteen gaashaanbuurta taasoo ahayd ciidan gaarayo in ka badan 600,000 oo dagaalyahanno ah. waxay wateen in ka badan 1,000 manjaanib. ciidanka waxaa ku dhex jiray baadiriga Bobby waxay ku dhawaaqeen dagaalka muqaddiska ah iyadoo isku qarinaya masiixiyadda waxayna qaateen calanka utalaabka. xilligaas khilaafadii Cabbaasiyuutu waxay ku jireen xaaladii ugu xumeed markii la eego dhinaca daciifnimada ciidamada ayaa soo wajahday xaaladii ugu adkeyd. waxaa jirtay dowlad islaami ah oo yar oo la oran jiray salduqiyiinta kuwaas oo u taagnaa difaaca xadidaha khilaafada kana hortaagay weerarada joogtada ahaa ay wadeen baasintiyiinta. hogaamiyaha dowladdan wuxuu ahaa Alaaf Alsan oo magaciisu yahay markii loo bedelo Soomaaliga libaaxa geeska ah. geedigan wuxuu soo laabtay Khuraasaan isagoo wata ciidan 21,000 ku maqlay imaanshaha ciidanka Saarabiin wuxuu isku dayay inuu heshiis la galo boqorka Bisaandiniinta Roomaanka siinaya abaalmarimo ku soo jeedinayo maal iyo hanti. boqorkii Bisaandiniintu wuu diiday asoo kibir ku sheegay in ciidamadan ay u yimaadeen in ay dabargooyaan muslimiinta ay burburiyaan barakadooda taasina ay tahay waxa uu doonayo. waxaa xusid mudan Alab oo xukumayay Saljuuqiinta wuxuuna war u diray khilaafada ama khilaafka si uu gargaar uga helo balse wax walba kama heleen sababta la xiriirta daciifnimada iyo xilligaas oo meel kasta laga jiray. wuxuu sidoo kale isku dayay inuu kiciyo muslimiinta oo dhan. waxaa ka jawaabay tiro yar oo kale. wuxuu u tagay la taliyihiisa qaaska Abu Naasir Moxamed bin Cabdulmaalik al-Bukhayri si uu u helo talo waxaana ku dhiirigeliyey jihaad iyo difaaca muslimiinta. sheekha ayaa istaagay dhexda ciidanka oo ku yiri tani waa maalin ka mid ah maalmaha Ilaahay dhiigga muslimiinta iyo barakadooda waxaa maanta difaacayo gacmihiinna iyo iimaankiina. kadib wuxuu kula taliyay in dagaalka laga dhigo Jimcaha si muslimiinta oo dhan ay u daahiyaan maalinta Jimcaha. Alab wuxuu aqbalay taladaas. maalintii Jimcaha 463 hijriyada 26 Agoost 1071 ayuu dadka ku tujiyey salaada Jimcaha ilaa asoo ka baryay Ilaahay inuu u kaalmeeyo xaqa kul difaac. ma jirto amar kale oon ahayn kan Allah subxaanahu wa tacaala. wuxuu fuulay faraskiisa oo ku dhawaaqay haddii aan jabno dib uma soo laaban doono goobtan ayaana noqon doonto qabrigeenna insha Allah. sidaas ayuuna ciidankii kalsoomadiisa dib ugu soo laabatay 21,000 oo libaaxyo majestiyaal ah. dagaalka wuxuu ka dhacay duqdii hore meel yiraahdo Manzikaat koonfurta bari ee Turkiga. wuxuu ciidankiisa u kala qaybiyey qayb la yiraahdo fardooliyada fudud Fallaariyaanada. wuxuu u kala qaybiyey dhowr qaybood. qayb markii ay soo galaan inay u baneeyaan oo in waxba ay la dagaalameen. qaybta fardooleyda ay meel sare ay iska muujinaysay si ay gudaha ay u soo galaan shabaqa loo dhigay ay ugu soo dhacaan. qaybtii fallaaraha kuwaasoo ayakana utubkaas lagu nashqadeeyey buuraha koro ayagoo soo kisiiyey. waxay markiiba ay degeen meel u dhaxaysa labada buurood. taariikhyannadu ku tilmaameen mid ka mid ah kambiyanada ugu xilka dheer taariikhda dagaalada. ciidamada baasiniinta waxay galeen markiiba aagga ay ku buuxsameen maashiir loogu talagalay amaruu siiyey cutubkii fallaaraha kuwaasoo roobka ugu dhigay markay imaadeen taargeedka loo cayimay ayagoo baabi'iyey saacado gudahood in ka badan 60,000 oo dagaalyahanno ah. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu qalbiyadooda ku riday salbinta argagax cabsi iyo qalqal. khilaafkii dhex maray hogaamiyaasha ciidanka Yurub ayaa aad u xoogaystay waxayna isku eedeeyeen ugu dambeyntii jabka ka soo gaaray goobtaas boqorkii Bisaandiniinta ee Roomaanska. sheekooyinka taariikhdu ma ahan maaweelo waa fariin baraarujin ah